waxa la yidhi maalinka qiyaamaha dadku way kala baxsanayaan, midna mid buu ka baxsanaya ayuuna waxba kuu sheegin, midna mid buu ka baxsanaya maalinka qiyaamaha. aabbaha baad ka baxsan, hooyadaa baa ka baxsan. yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi haweenaydaadii ilmahaagi waad ka baxsanaysaa ilaa xaafidu lqur'aan. maalinkaa isagu labadiisii waalid ayuu raadinayaa. muxuu u raadinayaa? wuxuu u raadinayaa, wuxuu u xidhayaa taajka la yidhaahdo taajulwaqaar oo ka iftiin badan cadceedda oo guriya la soo dhex dhigay. aawe hooyada iyo aabbahay, aawe dadkii qur'aanka i xafidsiiyey, taajkaas u xidhaya. markaasay leeyihiin maxaa noloogu xidhay taajka? waa wiilkiina qur'aanka aad xafidsiiseen daraaddeed. allahu akbar. qur'aanku kaama tegayo. adduunka cizi iyo sharaf iyo wanaag, qabriga cizi iyo sharaf iyo wanaag, aakhiro sidaasi leeg. jannada ilaa aad gelaysid kaama hadhayo. qur'aanku kuu shafeecad qaadaya, waa kii nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam. qur'aanku u shafeecad qaadaya qofkii akhriyayey, ku camalfalayey, jannada ayuu gelinaya. weliba waxay yidhaahdaan jannada dhexdeeda kaama hadhayo qur'aanku. inaad dadka la sinaatid jannada galay ma tihid, waad ka saraynaysaa. qofka qur'aanka waxaa la leeyahay iqra, akhri isagoo jannada ku jira. akhri qur'aanka sida adduunka u akhriyaysa. warqa, kor noqo. warattil kamaa kunta turattilu fi dunya. miisaan baa u biiraya, daraja u biiraysa, sharaf baa u biiraysa, karaama u biiraysa, guryo fiifiican iyo darajaad sare ayuu helayaa qur'aanka isagoo akhriyaya aayad ilaa aayadda ugu dambaysa meesha ay ku joogsato gurigiisu noqonaya. allahu akbar. maxaa ka weyn marka? maxaa uga sharaf badan, maxaa uga wanaagsan darajadaas? axibbatii fillaah, barakada qur'aanka waxaa ka mida qofka akhriya ee qur'aanka ku camalfala, ee barta, ee micnihiisa baranaya. ilaahay caqligiisa wuu ilaaliyaa. caqligiisa ma waasho, ma khafiifo. sida ay dumarku yidhaahdaan, qur'aankii baa jiidhay. qur-aanka ma baawurba? qur-aankii baa jiidhay. qur-aankii u badsado, qur-aankii baa jiidhay ayay ku odhanayaan. qur-aanka waxba ma jiidho, waxbuu daweeyaa qur-aanku. qur-aankii ayaa daweeyey. ilaahay wuu ilaaliyaa, ma asaasaqo. qofka qur'aanka xafida, ku camalfala, qur'aanka tadabbura ee u fiirfiirsada, ilaahay maskaxdiisa wuu ilaaliyaa.